magaalada Aws ee wadanka Denmark waxaa lagu qabtay shir aad iyo aad u ballaaran. Shirkaasna waxaa ka soo qayb galay Soomaali aad iyo aad u tiro badan. Shirkaasna waxaa looga hadlayay dhibaatada Soomaaliya maanta ka jirto. Shirkaas waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiyay safiirka Soomaalida UNHCR u fadhiya Maxamed Ismaaciil Yuusuf. dowladda Denmarkna waxaa ka socday madax kale oo aad u tiro badan. Shirkaasna waxaa loo gurfaynayay dhibaatada Soomaaliya ee marxaladda maanta ay ku sugan tahay. Shirkan waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadaha ka jira wadanka Denmark. Yusuf oo macnaha Geneva nooga yimid oo United Nations macnaha noo fadhiya dowladda federaalka noo fadhiya baartay Geneva oo hadda macnaha waa karfokeena waa maasintii. السلام عليكم. سلامة إسلام ككذب ولا لي الواحد شرف قارئة إن ما أنت كان وذي شغله والله واحد كستوى مقادير الله واحد كلون آد وفرح صناعي ضد صومالي دو إنت هاتير الله إك وهالملي سوي يمين waxaan mahad u jeedinayaa ururadii badnaa waxa lagu tiriyay haddii aan qaldanayn 12 soo sidaa ma ahayn oo qaban qaabiyo shirkan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa howlwadeennada ka socda dowladda Denmark oo halkan inala jooga taasoo muujinaysa oo astaan u ah sidii dowladda Denmark ay u danaynayso arrimaha Soomaaliya ama ha noqoto dalkeena ama jaaliyadaha Soomaaliyeed oo halkan Denmark ku nool. waxaan jeclaan lahaa in mahadda codsado 12 urur oo shirkan qaban qaabiyay in ay halkan ka sii wadaan ay kordhiyaan wada shaqayntooda iyo wada jirkooda. waxay isweydiin mudan oo ilaa intanuba waxaan u malaynayaa in badan baan qurbaha ku nooleen. maxaa ina keena qurbaha? inta badan dadku waxay u safraan ama u haajiraan qof waxbarasho doonaya, qof nolol iyo shaqo iyo mustaqbal, iyo qof ka carara dhibaato haddii ay dhibaato dalkiisa ay ka dhacdo. waxaan jeclaan lahaa inaan dul maro 2 qodob maadaama anigoo tixgelinahay waqtiga kooban. hadhow wixii su'aal ah طبعا diyaar baan wahay. waxay la tahay markii la isweydiiyo ilaa inta badan waynu ku jahwareeraawo waxa weeye su'aasha ah marmarunbaa in aad diin wadaagtaan haddaad Soomaali tihiin, inaad isku dad tihiin, inaad isku dhaqan tihiin, inaad isku luqad tihiin. waxaan u malaynayaa intiina meesha fadhida in su'aasha noocaas oo kala ah qof kastoo idin ka mid ah in la weydiiyey. waxay la tahay in la wada ogsoon yahay in intaasoo astaamo ay ummadda Soomaaliyeed leedahay ay tahay astaan ayaan lahayn dalalka kale Afrikaanka ee muqaaradda wadaagno. haddaba marka maxaa keenay burburka? halgankii xornimo doonka dib ugu noqon mayno, wayna wada ogsoonahay. raggii iyo dumarkii halganka ka qayb qaatay runtii waxay mudan yihiin inaan qalbiga uga duceyno iyo inaan ammaano. waxay la tahay sababta ama sababaha midda ugu muhiimsan oo burburka keentay inay tahay inaan la isqaayibin nidaamka Soomaaliyeed ama dhaqankeenu leenahay ama taariikhdeenu leenahay iyo nidaamka dawliga ah. waxaan ka hadlay waxaan u maleynayaa inuu isla fahansanahay. waxay la tahay in arrintan ay sabab u tahay ugu badnaan waxa keenay burburka.
كوي سجاشن كي بربر كي دعاي قف كست موادين الصوماليات لبا قضب أي أسوة هري وهكسدو أفكار قلاد محلي هذا الريسورسز تاسو diinteena barakaysan iyo hadda qof kasta reer buu ka dhashay identitygiisa reer ahaan labadaasba nasiib darro waxaa loo adeegsaday siyaasad iyo طبعا xukun oo madani ah waxay arrintu sidaa usoo socoto waxay ila tahay waxa ugu wanaagsan oo jawaabta maxalka ugu wanaagsan oo laga gaari karo waxa weeye inagoo طبعا diinteena barakaysan aaminsan oo ku xiran inaan isqaybno oo la iswaafajiyo labada nidaam sababtoo ah hadda kaligeen dalku kuma noolina waxa weeye adduun iyo ummad kale ayaan wax la wadaagnaa wadaagaasna wuxuu u baahan yahay nidaam la isku afgaran karo nidaamka la isku afgaran karana waxa weeye nidaamka dawliga marka waxa afka qalaad lagu yiraahdo institutions ama haykalka dawladda in la xoojiyo la adkeeyo markaan u soo noqdo dadka dibadda ku nool waxa weeye inta badan waynu ogsoonahay waxa laga doodaa waa laba qodob waxa weeye assimilation iyo integration afka qalaad lagu yiraahdo markaan af Soomaaliga isku dayno inaan maaragtay ku fahanana waxa weeye ma waxaynu ku milnaa oo aan ku mid noqonaa dadka inuu la noolnahay ama dalka aynu u soo haajiray mase inagoo dhaqankeena iyo diinteena ku dhagan oo maaragtay ku wanaagsan waan ummadda kale wax la qaybsanaa waxay la tahay waxaan haba yaraatay shaki ku jirin inay wanaagsan tahay oo ay habboon tahay tan labaad sababtoo ah qof aan identity haysan oo identity lahayn oo dhaqankiisa diintiisa ka taga dad inuu garan karaa dhibaatada maaragtay qofkaasna ku dhici kara ummadoo la nool yahay oo geyn kara waxa aad ii taabatay runtii waan aad ugu farxay barnaamijka oo magaaladan laga fuliyay oo hadda